sheekadii Shirwac Qawsaar ee curiyaheedii uu sida farshaxanimada leh u falkiyey. Sida ka muuqata naanaysta magaciisa ku laran, Shirwac wuxuu ahaa nin saboora oo ka xoogsada qoysaska reer miyiga ah kuwooda hodanka ah. Iyagaas ayuu xoolaha u raaci jiray, dabadeedna markuu ku gudoo ayaa neef ama laba la siin jiray. Berigii dambe ayay isqabteen ninkii uu qowsaarka u ahaa. Kolkaas buu u tegey mid kale oo inuu ciidan u baahan yahay loogu sheegay. Kii baa ku yidhi, warniyahow inaad ii ciidamiso waan u baahanahay, hase ahaatee dhabkuuma aqaane ninkii aad la joogi jirtay ee cid aad u ciidamiso ugu dambeeyey ayaan kaa soo waraysanaya. Ceebtaad leedahay haddaan kugu qaadan karana aniga ayaad xoolaha ii raaci doontaa. Ninkii buu u tegey. Markaas buu ku yidhi, Shirwac si fiican ayuu xoolaha kuugu dhaqaalaynayaa. Ceel iyo cashinba waa nin wax ugu filan. Waa nin sidii wax uu leeyahay neef walba gaar ahaantiisa uga walwala. Ha yeeshee ceeb buu leeyahay. Waa diradiraale oo laba qof oo isku wanaagsan baan la tusi karin. Markaas baa ninkii wardoonka ahaa wuxuu yidhi, ceebtaas markii aan ku ogaado waan iska ilaalin doonaa ama waan ka maarmi doonaa. Haddase waan ciidan xumahay oo xoolaha ayaan raacsanaya. Karin geela oo uu lahaa ayuu raacsaday. Markaas buu si fiican ugu baylaha tiray. Markaas buu ninkii Shirwac jeclaaday. Mar walba oo ay kulmaanna wuxuu kula talin jiray inuu iska daayo dabeecadda diradiraynta ee loogu sheegay. Berigii dambe ayaa ninkii geela lahaa meel u sodcaalay. Muddo dheer hadduu maqnaa ayay naagtiisii walaacday oo wahantay. Dabadeedna Shirwac bay inta u timid waxay ku tiri, war waxaan u malaynayaa in ninkii naag kala guursaday oo inaan ogaado ayaan rabi lahaaye maxaan yeelaa. Markaas buu Shirwac ku yidhi, intaan hadda idinla joogay qabanqaabo guur ninkaaga igama muuqan. Haddaad sa rabto inuusan weligiis naag kale kula guursan, waxaad yeeshaa markuu seexdo saanta uu ku hurdo dhinaca madaxiisa ku abbaaran xoogaa fiican oo tima ah ka soo gooso, dabadeedna ku uunso. Weligiis iyo allihiis naag kale oo aan adiga ahayn uma haqaltaagi doone. Naagtii baa inta jawaabtii la dhacday mandiil xiiraysa soo tumatay. Shirwacna markuu ninkii yimid ayuu inta u tegey wuxuu ku yidhi, warniyahow aniga diradiraale ayaa la igu kaa sheegay. Haddaan wax kuu sheegi lahaana waxaan ka baqayaa inaad iga hoos qaadi weydo. Ha yeeshee nin wanaagsan oo aan jeclahay ayaa tahay. Marka waxaan kuu sheegayaa naagta aad qabto intaad maqnayd in balaaya ku diday, wax ku dhacayna garan maayo. Intii aad maqnayd oo dhan waxay ku dhaaranaysay inay ku dili doonto mar ay noqotaba. Haddaad been iga moodaysana hadda ha la hadlin, markaad sa seexato is ilaali, adigaa wax arki doone. Ninkii baa iska tegey isagoona hadalkii Shirwac rumaysan. Wuxuu is yidhi, si raboo ha la hadlin oo siduu ku yidhi iska yeel. Bal hadduu gamcaye saanta uu ku hurdo dhinaca madaxiisa xiga in yar timaheeda ka soo gooso siduu Shirwac ku taliyey. Markay mindidii la soo baxday ayuu isna is yidhi, wallaahi waa wixii Shirwac sheegayey oo inay ku disho ayay rabtaa. Markaas buu isagoon waxba hubsan toorey 3 gees ah iska soo dhuftay oo naagtii laba u kala gooyey. Shirwac Qawsaarna intuu markiiba orday ayuu u tegey nin ay haweenayda walaala ahaayeen. Kolkaas buu ku yidhi, walaashaa seedigaa ayaa dilay. Naagtii walaalkeed ayaa isna soo orday oo seedigiisa oo geela xeradiisa hor taagan laba isla eg ka dhigay. Maalintii xigtayna labadii qolo ee naagta iyo ninkeedu ay u kala dhasheen ayaa gam isku noqday. 10 rag ah ayaa isaga dhintay. Dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo jooga.